mawlidka Soomaalidu waxaan ka hadlaynaba maaha anu de waayahan meelaha lagu dhiga ma tegine kii aan soo gaarnay naqiinay hana idaacadaha iyo warbaahinta soo laga qaadayo maqallo islaamnimaba maaha ka Soomaalidan ka hadlaya bidayba iyo barsanjigana waxa la qaado shirki miiran way isagoo keligii oo waxba lagu darin yaaman lahayn bidca weeye kan Soomaalidu shirki way inuu yahay de ninkaan aqoon baa loo digdigiyay damdhaha annagu mawlidkana waa naqaan dabiiciya barsanjina waa naqaan burdiya hamziyana waa naqaan مولاي صل وسلم هي ما قعدنا واتقنا سوا مركي النبي صلى الله عليه وسلم قاضي أم ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء له أم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم مركي خير خلقك كلهم لقاضي waxaa loo gobol xaadaya halku dhigay u tahay waxaa la qaadaya burdihi baa la qaadaya مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم تسمعين مسانا سبي بردوه waxay ka bilaabataa من تذاكر جيران بذي سلام مزجت الدار يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومرقدن الشرك ويعبيادنا يا أكرم الخلق خلقك كي شرف بنايو ما لي من ألوذ به إذا مغنقل ما يستانه عند حلول الحادث العميم مصيبة وين القيامة مركي لحظة إذا مغان قال ما هيست وسواك أذي أنا هين كذب حوري إن لم تكن في معادي آخرها دادا النقن آخذا بيدي قعنت بيدي قبته فضلا أضو إيقو أبالي سمينيا وإلا فقل يا زلة القدم هذيك لو حالي هذا من النار تقول عايو لوكتي سبقتي قده فإن من جودك الدنيا deeqda maxamed nabi maxamed adu aad bixisay waxa kamid ah adduunyada deeq aad u bixisay way ilaa ba bixiya ma wadarrati aakharana deeq aad bixisay way waraaqariya adduunya iskale yaa bixiya wa hadda noloshan iyo nicmada adduunka manay maxad beenaysi misal Allah beenaysi fa inna min juudika deeqdaadi nabi maxamed waxa kamid ah adduunyada iyo wadarratiha aakhiro wa min ulumika ay ilmigaaga laga qaatay علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ كان هذا لغا برتي إلهي علم اللوح المحفوظ كو هذا لاقات بكاسد نفعنا الله به لهدو مولدنا بان دغيا لهدا waxaa dadka looga dhigi ilaahi baa loogu dhaweyn ma shirki baa ilaahi loogu dhawaanay maxamed lagu weynayn waxa waa weelka Soomaaliya waxaan way ninkii faafaahinta ka badan burdaha ka rabay mawlidka waxa doonay ka dhowr sano ka hor aan duubay maqal iyo muuqaalka ku noqdo